وكان أفركي سامبوسيات شعلتنا وكوسمين كان waa saambuusihii timirtii qaxwihii ma sha Allah ma waxba ka dhiman waxaan ku anfurkan ka macaan habeenadan ma baan cunin maxaa tiri xaaji anfurka ma aha maryantaydii aan aqaanay ayaan ogeyn meel ku dambeysay hadiyo maaniga mise adigu soodigan subax walba orodka ku jira ma ee xitaa rabadaantii waqti ma helayso hadiyo mushkuladu soo khudradda iyo suuqan aan jooga soo maaha waan iska joojinayaa si ay dhibaatadu inooga yaraato cibaadadana aan u guto bisha rabadaan maryanay marun baad ii sheegaysaa haa waa go'aan gaadhay waan ku faraxsanahay warkaas waxa baan kugu jecelahay sida fiican aad ii fahanto waan ka xumahay laakiin waan ku faraxsanahay inaan arko farxadaada caruurteennana gurigan inoogu haynaya mahadsanid maryanay isu dhaga nugulaan baa reerkeena u doonahay anfurkana cuno هاي حاج هاي أنا أنفردو دركنا وانيقا كوكا وذيه در قروح بدن حلو مرنا كمان ضيعينه وان كايرا مشغولين ما هالسند إيه مكاتها هيدا مريم خان شعله لكن عديو محاد كودي ناكل هالسنية وحبقى على صو كلي عرايقة كنتي وقت جدينا وابدل صداف وارياه متكال صوق قضي بقى هيدا قورمات كينيسة أنا قريقان كوريتيه أنت أنا هاي قفت مرة سيدا يهلي كرتا ما جرت مرياني أنا قاوه الرئينا إياه بل كان أدقو مرياني وحي كفت رئيس كتور مرنا بمشي علينا نحاس كلياشو أدقى أيان كتشو علىها ما هو بتاع عديو هذا الكاك قبر بان كين إياه أنا قاوه إليكا إنو كسوق أي قلبي كاك حاشا مرياني كلي أنا قوة الربا إنه لشي نسيدي إنه هرئي في عنيد أي كسور نقطه waxay ka ahayd ba war jira akaaru iman faysalow albaabka inoo xidh aye hooyo macaanii waran halkaa ka timaadeen duhurkan kulul faysalo waa kii soomanaaye naa maxaad leedahay intaad saaka qabo weyday taleefankayga oo ninaan kan faysaloo sooman aroosna ah hurdadii ka toosiyey alla hooyo ma dhakhtarkii baa tagteen bay ku leedahay adigu saaka xaggeebaad qabatay yaasmin walaal saaka malaha waad ka lahday markaannu ku weyne baan hooyo dhakhtarkii u raacay naamiyadii lowdi ooyo balsug yaasmin cadhumaad kuladu dhacday dukaanku soo ka madhan waaba wada boodhase wax u jiraa waad aragtaa inuu madhan yahaye maxaad iga weydiin naa yaasmiine dukaankii wuu kacay unbaad tidhaahdaaye meheer kan madhnaashiiyaha ah ayuu gaadhay anigu hooyo idinmaan diidi karayn wax walbo aad doontaan dukaankayga ayuunbaan ka bixin jiray waa taa sagxadda madhan soo hadhay ilaahow sagxad madhan hana dhigin oo hooyo miyaanad wax kaydaba haysan faysalow adigaa ii sheegay inay habboonayd inaan dukaankayga caymis geliyo waan kuu sheegay waa runtaa maxaad ka sheegi haddaba waxaan halkaa ku waayay alaabtii ugu badnayd aan soo waaridi lahaa macmiishii ka warran waxaaba layga rabay inaan macaamiishii wax u celiyo adiguna faysalow waxaad u baahnayd aroos aad u weyn walaal horta eeg joog ha iga dhex gelin hadalka arrintaa waad ogeyd waxaad soo jeedisay inaan aroosadaada quruxda badan aan u iibiya dhar aad u qaaliya hooyo waa runtiisee miyaanay hodan aad u qurux badnayn isug hooyo hodan dharkeeda waxa uu iibin lahaa qoyskeeda haddaan reerkooda wax u geyn lahaa unbaan u iibin lahaa dee hooyo adigu waad og tahay inaad burooyin leedahay waxaanan raba inaad daaweynta ugu wanaagsan heshid qaalina way ahayd hooyo khasaarahan dhulka inala galay miyaanad wax kaydaba u haysan dadka ganacsiga ku jira lacagahooda kuma wada kharash gareeyaan qoysaskooda waxay mudnaanta siiyaan ilaalinta ganacsigooda aniguna taa maan yeelin adigu ma wixii aad haysatoo dhan baad gelisay qoyskeenna eeg waxaan iibiyey dahabkaygii kaydka ahaayoo idil siduu dukaankaygu igu sii furnaado laakiin lacagtii kharashaad bay iga wada noqotay waxba ma hayo iminka allah sidaa dee miyaan u ogaa haddaba hooyo yaa kharashka daaweyntaada bixinaya adiguna faysalow sidaad xaaskaaga u haysan doontaa adigoo weli ardaya waa su'aal da'weyn weeye iminka miyaa isku kay hallayn kartaan waa arrin xalkiisu ina wada sugayo waxaad i gaadhsiiseen inaan ku kaco waxyaabaan caqliga gelayn oo ganacsigaygina dilay waana salaamay yaasmiin kirada bisha soo socota mad haysaa السلام عليكم ولا العبدي
rabadaan kariim maalmahan kumaan adhaga magaaladu miyaad ka maqnay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد ما يولا الوان شوقي وحوقع شقدي اسمها أيوم باي يقول بنيدو تكل بحالك الشقد وتهاي أيوم باكو تكنشل ما شاء الله كورن عرورتي يا حافظتي والحمد لله رب العالمين وان وضوا عنها يا شيخ بارك الله فيكم بارك الله فيكم شيخ وحن ربعين الأرهن يقال تلسو سودو عبد aniga iyo xaaskaygii ayaa ilaa rabadaanta ka hor muranuna kala dhex taagnaa soo rabadaanta inaad dhexdeeda ku xallisaan may ahayn sheekh maxamed xaaskayga waxay bilowday in ay waxoogaa khudrad ah ku iibisay aqalka hortiisa aniguna arrinkaa waan ka bidiiday ee arrinkaa diintu maxay ka qabtaa waxaad ula jeedaa ganacsi bay bilowday haa waa caynkaa sheekh horta cabdiyow dumarku inay shaqaystaan wax diintu ka qabta ma jirto tusaale waxaa inoogu filan xaaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee qadiija waxay ahayd gabadh ganacsato ah oo tijaarada rasuulkuna wuu taageeri jiray miyay jiraan wax xun oo ay samaynayso ama aad dhibsanayso marka laga yimaado ganacsigeeda maya sheekh wax xumaan oo ay samaynayso haba yaraatee ma jirto haa sax haddaba qur-aanka ilaahay inooma sheegayo meel lagu diidan yahay inay dumarku shaqaystaan maasha allah sheekhow diinta in la bartaa waxa ay muhiim u tahay nolosha iyo adduunyadaba waxaabaan anigu u haystay in aanay diintu oggolayn inay dumarku ganacsadaan horta cabdiyow shaqo waa sharaf maanta waad arkaysaa oo waad u jeeddaa magaaladeennan toosan waxa dhisme horumar ganacsi isdhex socda dumarkeennuna inay waxa diintu oggoshahay oo xalaala ka shaqaystaan amba ka ganacsadaan waa horumar inoo soo kordhay uun sheekh maxamedow waad ku mahadsantahay arrinkaa diinigeedii bayaamisay cabdiyow aadba shaqadaada soo ma jecelid sawaxanka aan yarayno rabadaan kariim dhammaantiin ku soo dhowaada xafladda aan ku daafurayno ganacsiga cusub ee gabadhayda ikraan iminkana iyada ayaa idinla hadlaysa waad mahadsan tihiin eedha ku soo dhowaada dukaankayga cusub ee dharka dumarka waxaan doonahayay inaan u bixiyo dukaankayga magaca hooyaday iyo kayga oo la isku daray hooyadayna waaba diidday mar haddii farshaxanka toolidda dharka dumarka iyadu leedahay dukaankuna uu gaar u yahay waa lagama maarmaan in loo bixiyo magaceeda hooyaday magaca ii bixisay bay la rabtaa dukaankaygana ina loo bixiyo maadaama ay ikraan tahay curaddaydii noloshaydan bishay waxaan ugu ladhay ganacsigeeda ikraan bila siday aniga ii bishay ayay ganacsigeedana u bilaysaa waad mahadsantihiin hedha soo dhowaada ganacsatadii aan hore ugu koona rugta ganacsiga iyo martida kaleba dhammaantiin hedha waa daawan kadhaan dukaanka ikraan ma aragtaa dad badan ayaa yimi xafladda furitaanka ganacsigaage hedha nashqadan hooyo ayaan gaar ugu sameeyey way yaallaan kuwo kale oo badan oon anigu sameeyey xagga hore ayay yaallaan weligood iyagoo kale lama arag balday walaalay weendha daraandare mahadsanid walaal xaggaa hore ka eeg walaal kuwa ikraan kuu sheegayso ikraan hooya dadka tustus waxaa u gaarka ah dukaankaaga hambalyo ikraan maasha allah dahabkii quruxda badnaayo hooyadaa keeni jirtay iyo dharkanaad keenta way isku soo baxayaan hooyo bal eeg qofkaa soo socda naynkaarane maxaad ugu yeedhay aabbaha miyaanad ogayn in xafladda jaamac imanayo oo aan kala hadlayo ganacsigayga cusub assalaamu calaykum isir sidaad ilaa tahay weli ka warran quruxdaada waxba ma iska beddelin jirkaaga waxba ma iska beddelin ikraan naa maxaad u soo marti qaadday odagaygii hore wuu ka soo hor jeedaa haweenka ganacsiga ku jire edha waxaan rabay inuu aabbahay ka soo qayb galo furitaanka dukaankayga cusub allah ha barakeeya aabbow ganacsigaaga dukaanka waa dukaan aad u weyn aadna wuu qurux badan yahay maashaa allah soo dhowow aabbe maanta ii suurto gashay fikirkii ganacsigayga inaan kaga dhabeeyo ikraan u sheeg martida inay sharaabka cabbi karaan hubina saxaafaddu inay qaadeen dhammaan sawirradii loo baahnaa ikraan aabbo waxaan ku weyddiiyey ninkaas soo gelaayo oo wiilka la socdo ninkii habartaa ay xidhiirka lahaayeen ma aho yaa hedha waa jaamac xasan waa maalqabeenka iskale shirkadda weyne dhismaha oo ma garan weydey bal hadda aabba halkan i yara fadhiiso soo dhowow jaamac in kastoo khudbaddii furitaanka aad in yar ka soo dib dhacday maasha allah hambalyo ikraan ganacsi aad u qurux badan baad bilowday bilicda ganacsigaaguna hooyadaa isir baaba ka muuqdaa mahadsanid adeer jaamac nashqadaha dharka oo badan oo anigu haddeer aan sameeyey baa yaalla iyo qaar aan dibadda ka keenay adeer bal hadda fiiri dukaanka oo dhan
meeshaad daydaaba waa meeshii kale allah kuu barakeeyo waan kuugu ducaynayaa inuu kuu barakoowo sida hooyadaana aad horumar ka gaadho ganacsiga insha allah mahadsanid jaamac insha allah allaha ku guuleeyay inantayda ikraan ganacsigeeda cusub adiguna aad ayaad ugu mahadsan tahay maatinkaaga odaygan madarawalkaagiibaa meel wadda aan dhigay gaadhigaygii hofraha iigu dhiib ha iga qaadee faysalow raadiyowga iga baktii halkanna soo fadhiiso hooyo meeda yaasmiin faysalow walaashaa yaasmiin khasaaraha soo gaadhay qaladkoo dhan aniga iskale waayo culays badan baan saaray iminkana karaaba laga doonaya hooyo balsug anna waxaan ku mashquul ahaa uun noloshayda oo wax gacanaba maan siin walaasha yaasmiin maxaanad gacan siin gacaliye hooyo waxaan had iyo jeer u malaynayay yaasmiin inay lacag u kaydsan tahay oo aynu isku hallayn karno innagunbaa sidaa qabnay waa kee qofka aan meel waxba ku kaydsanin odanay ciday meel wax ugu kaydsan tahay ma jirto adigana ha ahaatee dhammaanteen waxaynu isku hadlaynaynay dhinaca lacagta inay yaasmiin naga kaalmayso anigu weli maa fahmin waxaanaad ka hadlaysaane waa maxay dhibaatadu miyaana yaasmiin nabad qabin hodanay inantaydii yaasmiin way khasaartay dhammaan ganacsigeediina waxba kama hayso xitaa dahabkeedii kaydka ahaa baynu isticmaallay ama waxay ka dhigan tahay inaan anigu jaariyad heli karayn kii xalliye saaka daal baan khalaas ahay hooyo ikraan caawa maxaad jeceshahay inaynu ku afuro oo soo xaafadda ka afuri mayno mise hoteel baynu aadnaa dukaankiina wayna sugahayay aniguna daalkii xalay baaban bes lahaye daalkow ma joogtid adiguye balkeen taleefonkaagii hooyaan eege waxay saxaafadda ku qortay xafladdii xalayto waa kan moobeelkayga shaqaalii dukaanka waxay ii sheegeen inay durbe helaan dala badan oo haddeer toobabka dumarku ugu jecel yihiina waa war farxad leh ma eegta wixii ay warbaahintu inaga qoreen iyo wixii ay dadweynuhu inaga yidhaaheen hooyo degalladu war fiican bay qorahayaan dayday ciwaankan dukaan casri ah oo toosan laga furay waan farxsanay maamo maasha allah waa war farxad leekeen oo sawirro lama socdaan miyaa kuwani waa markii aad tusaysay dadka marihii adigu aad samaysay fiiri hooyo sawiro aad quruxsan ayay naga qaadeen war hadda fiiri dharkii aan kuu sameeyey sida aad ugu soo baxday maasha allah balaa quruxdaada aad ayay u fiican tahay in ganacsigaaga gabadh sidaadaa u qurux badani ay aas-aasto sawirkan fiiri waa markuu jaamac furaha gaarigiisa kuu dhiibahayey waan ka xumahay inuu aabbahay darawal u moodo inkastuu shirkaddiisaba adha ka shaqeeyo eegaag sawirkan degelkan war fiican ayuu kaa qoray khudbaddaadii xalay aad bay cajiib u ahayd af soomaaligaagana lama moodaynba inaad qurbaha ka timid ma tiri hooyo anna waxaaban islahaa meeshaabaad ka cadhadhi haddii lagugu qaslo horta waxaan anigu aad u farxay markii uu aabbaha hore xafladda uga baxay waayo jaamac ayaan doonaya inaan kala hadlo ballaarinta ganacsigayga oo kaalay adhama jaamac wiilkiisubaha qofku xafladda la soo gelahayay waan filayaa maydhaha kuu yara qabtay wuu dhar xidhasho fiicnaa soo maaha maya sidaa ulama jeedo hooyo ee addii muddo dheer ba wada hadlayseen jaamac haa ganacsigayga dahabka ayaan doonaya inaan ballaadhiyo meel cusubna waanu rabay markaa isaga ayaa wax dhiseen waan kala tashanayay laakiin waxaad u qoslaysaa sidii qof faraxsan naa maxaa ku jira dee haddaan u qoslo